haatanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkii ugu dambeeyay galka baarista ee baxay 19 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii Maarso ee sanadkii 1978 loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duleedka magaalada Jigjiga. barnaamijkaasi waxaan ku waraystay qaar ka mid ah saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali galbeed xubna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyay. qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa waraysi aan la yeeshay qaar ka mid ah askartii ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwa ka badbaaday dhacdadaasi. barnaamijkanina waxa uu dhamaystir u noqonayaa taariikhdii hore ee baxday. waxaa muhiim ah in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahawareer iyo dagaal ay asqayeen ciidamada Soomaalida, waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababa dhinaca qoraal la'aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal u ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanka ku jira awgeed. axmed maxamed cali waxa uu ka mid ahaa askarta ka badbaaday dilkaasi. waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan guutadii 10aad ee qaybta 12aad ee fadhigeedu uu ahaa magaalada Dhuusamareeb. hase yeeshee xilliga uu dagaalku socday waxa uu howlgalka kaga jiray aaga Shiniile iyo Harawo. markii lagu soo jabiyay dagaalka waxay u soo lugeeyeen axmed maxamed cali iyo ciidankii la socday dhinaca magaalada Jigjiga oo ay soo galeen 10 habeen kadib. subaxdii xigtayna waxaa looga yeeray xerada ciidanka. ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama ururkoodii, waxayna magaalada Jigjiga ku soo galeen qaab habqan ah. yaashiniina iyo subuudka ka dhacay ciidanka ka soo jabay baan ahay ilaa tobanyaha inta soo lugeeyay kalisi ugu weynaayo harmukaayil kaliska waa soo burburo waa la qabsaday. meeshaas dad baanu ku soo galnay amiinkaas anagoo dhowr nin oo iska soo baxay oo hoogay. amiinka markaanu meeshaan subaxdii makarafoon baa lala kacay. meesha waxaa isku yimid abkay ciidan waxa la oo habqanaada isku yimid halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeyay. meesha markii la isku tagay waxay ciidan bulshada malataara ciidanka bulshada malataarka markaa dee saraakiil dawladda anigu kulli saraakiisha hadda ninka magacaabo karo nin ku jiray baa. saraakiisha aan hore ugu waraystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khiyaano ah iyada oo loo sheegay in la dalaxsiinayo. hase yeeshee abaanduulihii kulmiska Jigjiga gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay. axmed maxamed cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyay xusuusta gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali. ciidanka waa la fariisiyay markii la fariisiyay waxaa yimid bulshada malataar ilaa dhowr gaari markii ay yimaadeen ciidanka waxaa la rabaa tiraa la qabanaya tiraas kow baa laga dabalaya 30 markii gaadho 30 ninka koob iyo 30aad baa ka ahaya meeshaasu tagaya halkaasu tagaya tiraas leeg baa tirada wadi dad badan bay noqotay dowladda meesha fadhiya ma yaha ilaa dee soo ku qodnay xarad birgeer oo dee ay lahayn jiro birgeer lahayn jiro oo birgeer ayaa la geeyey. haradii marka waxaan ugu tagnay ciidanka oo bulshada malataar oo ay yareen 500 ciidan oo bulshada malataar oo hubeysan haradii ku gudaamin baan ugu tagnay. haradii marka aan ugu tagnay waxaan ku qudbeeyay abash inaa argagixina ciidanka bulshada malataar iyo ciidan soo kordhiyay. adinku dadkii moraalka waa jabay ciidankeeni waa soo jabay moraalkiisi waa cumaaday. waxaan rabnaa marka dad la soo qabto in la ka dhigo odaa boor in la ku rogo dadka in la tusiso ama riwaayado iyo in la ka dhigo waligeedan baa imaanaysa dadkaas marka waa la tusiyo odaa waa la boor baa in ku roya hasaasana ku qudbay ma garan si fiican odaa afsay nimankii aad iyo aad baan ugu shakinay. markii dambe baa dhacay oo deegaal arkay meeshaan in nimanka il cadaw ka muuqanayso baa arkay mugti. intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyay in la toogto. horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo. anigu marka halkaa markii meel sooradan ku jiro ilaa la reesameeyaa waan soo dhawaanay safka horaan soo galay ashaadan daroomay si fiican baan isku qalbaynay. una akhrinaya adduun nimanka tiri baan isku qalbaynay waxaan hayna dhaaftaan aad baan ugu soo dhawaanay. ashaadana waa ku dhawaaqnay tawxiidkan ku dhawaaq halkaa markay marayso abuurkii baa ka dhexbaxday dadkii baa ka dhexbaxayna amarkii anagoo maqayna xabadii u dalbay koonfur buu yiri dabka fura markuu yiri anigu bilaabatay dabaashii si cawskii la sheeshay ugoyna u jeednay koonfur buu noo jeedisay. anigu markaa waxaan waa dhacay dadka wareegay baan deeqay saaray ayaa ilmi baa dhacay ninka aga dawlacaya markaas waxaa maqadaa markaa anigu markaa dambe xogaa adigu soo migisay
ومركو دني waxaan noqday aqoonsi kale oo mar dambe aan arrin naftii ku jiro ama waan diyaar xogaa jikada ka taasaan mid baa xaqiiqada xogaa xanuunaysa ma taxan ka mid dareentay markii cabaar inta hal saac bida ay soo tago buurta ka yeelay isku aysan iyo budada isku aysan wixii waa dalban wixii taara cabida la joojiyay cabida la joojiyay baabuurta hal fuu sidii lagu joojiyay way fuuleen ayagoo naga dhaqaajiyay oodii markii ay baxeen oo amba baxeen oodii si rabseen baan markii waa arkay neefti iska baxshay inuu meel yahay arkay oo waa wariya oo xabadii ku taagmay ayaka ama meeshii markuu yakay ay markaa waa arkay inaan xabad dal iga taagdan ku dadka shilin baan marinaya waan filaad ugu jiray waxaan iska waan fiirin waa inuu meeshii baan ku maray inuu meeshii jooga inuu ka horjeeday baabuurkii kuwii hore keliya raaceen baabuurkoodii way raaceen iyankii ayaan soo galay aniga waxay soo galay rajulii aan saaka la jooxay meesha la saaray laakiin igu soo maray halka iyankii rajulii ay kaleeyeen meesha kii laga baxshay askartii bal waa karay buuq baa karay geed baalaad aga tagay taani ka dhacay anigu meelun baa la geliyay iyankii markaa waa soo noqonayaan baa la gaabtiya ka wada soo noqdeen anigu baa la igu baxshay iyo ka wada baxshay sababtoo soo noqdeen iyaga aad aan jirin oo ilaahday waxaan meel qabno ma xabadii kaara marin soo galaysa حتى نفسي بالجانا وحبط ولا في جاري بيساعدني هذا اللي انتقال ماشي دارسين سواء لو احيانا تكون هنشري اذا انت مش مقدمين اللي ماشي هذا عنده بيان سوري على ميل اللي يقري maalinta uu dilku dhacay habeennimadeedii ayaa askartii taqaanay Axmed Maxamed Cali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafaciise waxaana la keenay deegaanka Garyogol oo koonfur kaga beegan magaalada Hargeysa muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyay magaalada Muqdisho intaas aan meel maray hal daawo ma qaadan waa dhacday Hiiraan galay الواقي فكنت حاول مع هذا على كل حال خاصة في الصباح marka askarinimo markii baa kugu dambeysay askarinimo kii ay dibis Allah inta soo wala dib kuma noqon adaan insha Allah la simaa adaan ka dib kuma noqon imisa qofaad kaga badbaadeen imisa dhimatay imisaad ku badbaadeen inka kulli annu inka ku sheegayo waa waxa ka badbaaday marka waxay sheegayaan aniga أنا داو قاضي من القسيم وشيء والله إن كان لكن أنا عن إستعمال الحلم قديم لكن في أرضي وما كان كوي ما كان قليل أنا ما كان كاسة داو الجاري dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaar kamid ah askarta la laayay Abuukar Gacal Cali waxa uu ahaa isbatoore waxa uu kamid ahaa guutada 15aad ciidanka uu taliyaha u ahaa Maxamuud Sheekh Dulqaad waxa uu Abuukar ku sugnaa magaalada Boorama xilliga uu dilku dhacayo waxa uu ii sheegay Abuukar Gacal Cali in askarta la laayay maalintaas uu kamid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada saaxiibkiisna ahaa waxa ku jira yar suudi dhaga dheer la yiraahdo 1976 February ayaa degmada afku iyo ciidamada u soo biir ninka iga horeeyay suudi dhaga dheer la dhigay ilaahay u naxariis suudiya la dhigay jiray wiilkii iga horeeyay waa la marlixo waa ana la martadobana ninka todobaadan ahay asaguna ninka lixaad isku ururaan dhaqanay ragii Djibouti la geeyanahay la tababaro hiil weyn ka soo wada baxay intaana la bedelay intaasana soo jirnay rag la sooco ku jiray oo la laayay suudi ninka aniga iga horeeyay Abuukar Gacal Cali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi waxa haddaba soo baxay su'aalo la isweydiin karo baaritaankan uu sameeyay barnaamijka galka baarista waxa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur kaliya sidoo kale waxa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay waxa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo halka kuwa kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeedada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxadooda iyo ururada kala duwan ee ka tirsan yihiin darteed waxa kale oo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaas uu ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horeyna u sii tababarnaa taasina ay sii kordhisay jahawareerka taasi waxa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijka aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geystay askar Soomaaliyeed 1978
waxaa hubaala dhegaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjoogga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiilka soo socda